laga yaabaa rag badan inay hayo waan lay maqlin salaanta waxaanu sheega ma maqasho carruurtu ma maqlaan dabeetana guriga markuu soo galo waa awaamir iyo dagaal haddaad rabto in dadku caqligooda ku aqbalo waxaa ka horeeya qalbigooda inaad furtid qofkaad qalbigiisa furi kari weydid caqligiisa ma furi kartid qalbiga maxaa lagu furaa alxanaan walxub walkalima ayiba qofka aad si fiican ula hadasho tusaale yar carruurteennu guriga waa ka sii cararaan markay kindergarten xadaanada meesha carruurta lagu hayo iyo iskuulkiiyo way jecel yihiin maxaa jira iskuulka markuu soo galo ama ka yari markuu xadaanada soo galay habarta joogtaa dhunkanaysa intay u fadhiisato ayay hag siinaysaa laabta u saaraysaa dabeetana waa soo dhoweynaysaa waa fadhiisinaysaa dhar bay ka bixinaysaa markuu ka imanayana hag bay soo siinaysaa adiguna markuu guriga soo galana fadhiiso war baad ku bilaabaysaa dee iyadu kaa jeclaanaya hadday saatay waxaan uga jeedaa qalbiga qofkaa la furaa dabeetana caqligiisa kuu furmaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli walidaalik buu la kaftami jiray haweenkiisa oo erayo uu kula cayaarayo ugu yeedhi jiray yaa caa'ish buu odhan jiray caaisho ugu soo gaabiyey yaa xumayra yabnata sadiiq idan waxay caaisha tilmaamaysaa xataa inuu la beratami jiray inuu la beratamay nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa iyadoo ciidan lala socdo uu ka soo yaro hadheen oo iyada iyo nebigu ay soo hadheen ayuu la beratamay markaasay ka dheeraysa beriga inanta yar ahaydee fududay beri dambe waxoogaa ay cuslatay buu yidhi kaale waa beratamaynaaye wuu la beratamo markaasuu ka dheereeyey tilka bitilka buu nebigu yidhi taatii u tuur buu yidhi maantii horena adaa iga dheereeyey maantana ana kaa dheereeyey yacni waxaad qiyaastaa nebi moxamed oo nebiya oo rasuulah oo ilaahay uu ka doortay bini aadamka oo dhan oo ummad dhan madaxweynaheeda oo inan yaroo 12 jira la beratamaya caaisha wuxuu nebigu ka dhintay iyadoo 18 jira inan yaroo 12 jira la beratamaya waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabku ula noolaa reerkiisa ilaa xad caaishaa la weydiiyey nebigu markuu guriga joogo muxuu qaban jiray waxay tihi kaana yakuunu fii mihnati ahli faida xadarat salaatu yatawada wayakhruj ila salaa dee reerku u shaqayn jiray bay tihi markuu guriga nebigu joogo intuu boqor iska dhigo meel fadhiisto waxaa ha la soo qabtuun muu odhan jirin reerka shaqadiisii wax ka qaban jiray bay caaisha leedahay dabeetana haddii salaada la aadimina intuu weysaysto ayuu bixi jiray caaisha waxay tilmaamaysaa xadiidka hore saxiixu muslimku ku yaalla mid kaloo imaamu axmed uu warinayo maradiisa isagaa tolay